Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dear students, welcome to Ilmi Online Academy. Welcome to Book 1 Basic English course. In this book, as I have already informed you that we are only focusing on grammar. So welcome to lesson 2. In this lesson, we are going to learn nouns. We are going to learn nouns. Okay, we are going to ask ourselves a question, which is, what is a noun? What is a noun? What is a noun? Kusoo dhawaada Cilmi Online Academy, kuna soo dhawaada casharkii labaad ee buugga koowaad Basic English Grammar. Sidaan hore idinkugu sheegay, buuggan keliya waxaan diiradda ku saari doonaa grammar-ga mise naxwaha luqadda Englishka. casharka maanta waa casharkii labaad kana socda buugga koowaad ee Basic English Grammar. casharka maanta ciwaankiisu waa nouns. ciwaanka casharka waa nouns. Okay, waxaa isweydiin mudan, what is a noun? What is a noun? Waa maxay noun? yacni waxaan ka hadli doonaa noun ayaan ka hadli doonaa. su-aasha isweydiinta mudan ayaa ah, waa maxay noun? A noun is a name of people, place, or things. A noun is a name of people, place, or things. A noun waxaa la yiraahdaa is a name, waa magac, of people, magac dad, place, goob, or mise things, waxyaalo. marka noun waxaan ku qeexnay waa magac, people, dad, place, goob, or mise things, waxyaalo. marka noun qeex haddii lagu dhaho, a noun micnaheedu waa is a name, waa magac, of people, dad, place, goob, or mise things, waxyaalo. casharka maanta waxaan ku baran doonaa common noun. markaan joogno, noun waxay u kala baxdaa ilaa iyo dhowr. waxaa ka mid ah common noun, proper noun, collective noun, singular noun, plural nouns. intaas ayaa ka mid ah. casharka maanta waxaan ku qaadan doonaa common nouns. si la mid ah waxaan isweydiinaynaa, what is a common noun? waa maxay common noun? waa maxay? si la mid ah waxaan isweydiinaynaa, what is common noun? waxaan dhahnay common nouns are words for people, animals, places, or things. common noun waa ereyada for people loo adeegsado dadka, animals loo adeegsado xayawaanka, places loo adeegsado goobaha, or mise loo adeegsado things, waxyaalo. yacni waxay la mid tahay names of people, magaca dad, animals magaca xoolo, places magaca goob, or mise things magac waxyaalo. noun waxaan ku qeexnay waa magaca dad, magaca goob, mise magac waxyaalo. common noun si la mid ah waxaan ku qeexnay waa magac dad, waa magac xayawaan, waa magac goob, mise waa magac shay. marka common noun maxay kaga duwan tahay nouns? noun iyo common noun maxay ku kala duwan yihiin? common noun waxaa la yiraahdaa waa magac guud. noun waa magac walbo, magac khaas ha ahaado, mise magac guud ha ahaado, mise magac kale ha ahaado. magacyadaas oo dhan ayaa la isku yiraahdaa nouns. casharka maanta waxaan ku qaadan doonaa common nouns oo ah magac guud. example of common nouns for people. magac guud wuxuu u kala baxaa magac people, magaca dad, animals magac xayawaan, places magaca goob, or mise wuxuu u baxaa magac things, waxyaalo. marka casharka waxaan ku qaadan doonaa
common nouns for people magaca guud ee dad magaca guud ee dad examples of common nouns for people examples of common nouns for people tusaalooyinka magacyada guud ee loo adeegsado dad tusaalada koowaad artist 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 waa farshaxan farshaxan waa magaca guud sabab waayo farshaxan haddii la dhaho wuxuu noqon karaa ali wuxuu noqon karaa umar wuxuu noqon karaa abdi wuxuu noqon karaa huseen wuxuu noqon karaa xasan wuxuu noqon karaa ali qof walba oo farshaxan ah wuxuu hoos imaanayaa magacan oo ah artist marka artist waa magaca guud actor 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 waa atoore atoore haddii la dhaho waa magaca guud samakhan ma aha shaarukhan ma aha qof walba oo atoore ah wuxuu hoos imaanayaa actor atoore magaca atoore ayuu wataa film walba aad daawatid wuxuu leeyahay atoore gooni ah marka actor haddii aan dhahno waxaan ula jeednaa qof walba oo atoore ah wuxuu hoos imaanayaa actor atoore lawyer 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 waa abukaate marka qof waliba abukaate ah wuxuu hoos imaanayaa magacan lawyer aunt aunt waa eedo eeda haddii aan dhahno waa magac guud eeda halima eeda habiiba eeda dentist dentist waa doctorka ilkaha haddii aan dhahno qof waliba oo doctor ilka ah wuxuu hoos imaanayaa halkan judge judge waa xaakim haddii la dhaho qof walba oo waa xukmo oo xukun judge waa xaakim marka xaakim haddii aan dhahno qof walba wuxuu hoos imaanayaa halkan oo xaakim ah baby waa ilmo baby waa ilmo yar ilmahaaga miya ilmahayga miya ilmahooda miya marka ilmaha yar oo dhan waxay wataan magacan oo ah baby man nin haddii la dhaho yacni nin khaas ah laguma sheegin nin ayaa la dhahay marka nin waa magaca guud qof walba oo nin ah wuxuu hoos imanayaa mise wuxuu wataa magacan oo ah man baker waxaa la yidhaahdaa dadka duba doorishada dadka duba biskudka doorishada iyo roodhiga dadkaas oo dhan waxay wataan magacan oo ah baker nurse waa kalkaaliso mise kalkaaliye marka qof walba oo ah kalkaaliye mise kalkaaliso wuxuu wataa magacan oo ah nurse kaasi oo ah magac guud cook waa cunto kariye marka qof walba oo cunto kariyo waxaa la yidhaahdaa cook police officer qof walba oo ah police officer wuxuu wataa magacan oo ah police officer dentist mar labaad ayaan kusoo celiyey singer waa heesaa qof walba oo heeso ayaa ah singer qof walba oo heesa ayaa ah singer soomaalideenan fanaaniintooda lama soo koobi karo okay aan ka gudubno singer waa heesaa qof walba oo heeso ayaa ah singer doctor waa doctorke doctor cali doctor abdi doctor huseen doctor xasan doctor haddii la dhaho waa magaca guud qof walba oo doctor ah wuxuu sitaa magacan oo ah magaca guud doctor soldier waa askarigee qof walba oo askari ah wuxuu wataa magacan way isla wadaagaan waa magaca guud teacher waa bare mise macalin yacni bare markaan ku leeyahay mise macalin aan ku leeyahay qof khaas ah ulama jeedo yacni qofka magaciisa waa inaan sheegaa macalin hebel inaan dhaho
laakiin qof walba oo bare wax baro wuxuu wataa magacan oo ah teacher. This is the end of our today's lesson. I hope you understood the lesson and I hope you enjoyed the lesson. And if not, I know my friends who are really happy to see this wonderful video. So, wish you success in this life and hereafter. Bye bye. See you in the next lesson. Goodbye.